saddex urur oo ka tirsan ciidanka kumaandoosta Gorgor ayaa ku xayiran dalka Turkiga hal sabab darteed oo ay sabab u tahay Eritrea. Muuqaalkan ayaynu ku soo koobi doonaa jahwareer iyo xaalad quus ah oo ay wajahayaan ciidanka tababarka ugu maqan dalkaasi. maxaa ka jira in wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka gaabisay muuqaalkan ayaynu ku soo koobi doonaa. waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan xogo warar warbixino muuqaallo had iyo jeer aan halkan ku soo baahiyo. dalka Turkiga oo 28kii bishii hore tababar ugu soo xirmay saddex urur oo ka tirsan ciidanka kumaandoosta Soomaaliyeed ee Gorgor ayaa halkaasi ku xayiran muddo 3 toddobaad ah. waxaa gebi ahaanba la waayay diyaarad halkaasi ka soo qaada. xogta ayaa sheegaysa in ciidankan ay u xayiran yihiin diyaaradii ka soo qaadi lahayd dalka Turkiga sabab la xiriira in hawadii ay isticmaali lahaayeen ciidankaas oo ah hawada dalka Eritrea dagaalo ay ka socdaan toddobaadkii saddexaad. dhowr jeer ayaa loo sheegay in ciidanka halka ku sugan ay isdiyaariyaan isla markaana loo qaadayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ciidankan ayaa waxaa qayb ka ah ururka 13aad ee buuxis guutada 17aad 18aad iyo guuto cusub oo ciidanka Gorgor lagu soo daray oo ah guutada 19aad. guutooyinka 17aad iyo 18aad waxay door muuqda ka qaateen inay al-shabaab ka saaraan Galcad, Misegowa iyo Ceeldheer oo ay door muuqda ka qaateen waxayna soo qaateen tababar leed sarkaal ah. waxaana ilaa imikan aan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. ilaha muhiimka xogtan la wadaago waxa ay sheegeen in ciidanka halkaasi ay ku wajahayaan xaalad adag. waxay sheegeen inay qoys taagan yihiin oo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay si weyn uga gaabisay tan iyo markii uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Soomaaliya marnaba ma isticmaalin hawada sare ee dalka Itoobiya sabab la xiriira cabsi dhinaca amniga ah oo ay muujinayaan diyaaradaha imaanaya gudaha dalka. tani uguma sii jirto waa diyaarad nooca militariga ah oo ka soo qaadi lahayd dalka Turkiga. muddo 3 bilood ah ayay ciidankan tababar ku qaadanayeen xirada la dagaalanka argagixisada Ihsaan ee gobolka Isbaarta. waxaa si la mid ah ciidan kale oo tababar loogu qaadi lahaa dalka Turkiga ay ku xayiran yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo uu qorshe u ahaa diyaaradda militariga ah ee ciidanka halka ka keenaysa marka ay Muqdisho timaado inay ciidankan kale ay sii qaado. dawladda federaalka Soomaaliya weli war rasmi ah kama soo saarin xaaladan ka taagan qaybo ka mid ah dalka Turkiga iyo Muqdisho oo la xiriirta arrimaha ciidanka. ciidankan waxaa la aaminsan yahay inay u xayiran yihiin wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab oo si toos ah uga bilaaban lahaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya. villa Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore xiriiro kala duwan la sameysay dawladda Turkiga si loo raadiyo qorshe kale oo ciidankaas lagu keeni karo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wixii warar ay ku soo kordha halkan ayaan kugula wadaagi doonaa isha ku hay page-kayga. nabadgelyo.